السلام عليكم أصحابي مركل كسر دواذا channel كيني صمتيج أونلاين وأدو برتين برامج أد حيصو له طبعا برامج كنا مانتا أنا دين هينو وحكو سابسين هاي مأوقت هاي أصحابي إني جيران واتسابيو كلا دوان أو أن إهين واتساب أن هاد استعمالنا طبعا مس أوقت هاي إن واتساب كان استعمالنا ay leedahay shirkadda Facebook ay leedahay dabcan WhatsApp-ka waan isticmaalnaa waxaan ku dirsanaa qoraallo iyo fariimo kala duwan video call ayaan ku sameynaa waxyaabo badan ayaan ku isticmaalnaa so WhatsApp-ka markii uu soo baxay kadib waxaa laga sameeyay laga modification gareeyay WhatsApp-yo kala duwan WhatsApp-ka ugu horeeya aan rabno maanta inaan aragno waa GB WhatsApp ayaan arki doonaa barnaamijkeena ku arki doonaa featureska waxyaabaha dheeraadka ah oo uu leeyahay oo uu dheer yahay WhatsApp-ka caadiga aan isticmaalno waxaa jira WhatsApp kale oo la yiraahdo WhatsApp Plus sidoo kale waxaa jira WhatsApp kale oo la yiraahdo WhatsApp Gold WhatsApp-yada noocaas ah ayaa jiro oo inta badan la isticmaalo WhatsApp-ka official-ka ah ee la yaqaano waa WhatsApp-ka caadiga ee naqaano leh midabkaas leh GB WhatsApp-ka oo WhatsApp-ka modification lagu sameeyay oo la yiraahdo modification lagu sameeyay waa isagana waa color-kaas ayuu leeyahay sidoo kale WhatsApp Plus isagana wuxuu leeyahay waa sidan ayuu egyahay sidoo kale WhatsApp Gold isagana sidan ayuu egyahay so WhatsApp-yadan kala duwan maxay ku kala fiican yihiin WhatsApp-ka aan isticmaalno caadiga ah waa official waa WhatsApp official ah oo la wada yaqaano oo registered ah oo markii ugu horeysay isaga soo baxay isla markaasna licensed ah sidaas daraadeed WhatsApp-yada kale laga daba sameeyo WhatsApp-kan sida GB WhatsApp iyo WhatsApp Plus way ka casrisan yihiin WhatsApp-kan official-ka ah markii la fiiriyo customization-ka markii aad fiiriso inaad wax badan bedelan kartid tusaale ahaan waxaad bedelan kartaa WhatsApp-ka caadiga ah waxa waaye 16 MB ayaad diri kartaa WhatsApp-yadan kalena GB WhatsApp iyo WhatsApp Plus-kana 50 MB oo muuqaal ah ayaad u diri kartaa asxaabtaada wuxuu leeyahay meelo aad ka bedelan kartid muuqaalka wax la yiraahdo color qurux badan ama themes ayaad soo download gareysan kartaa oo qurux badan waxaad iska xiri kartaa inaad online tahay iyo in kale waxaad iska xiri kartaa qofka WhatsApp kugu jiro inuu ku arko in adiga aad aragtay qoraalkiisa waxyaabahaas oo dhan ay dheer yihiin labadan WhatsApp aan hadda idin sheegay GB WhatsApp iyo WhatsApp Plus iyo sidoo kale WhatsApp Gold waxay dheer yihiin WhatsApp-ka official-ka ah themes-kan la soo download gareysanayo MB badan oo aad diri kartid waxyaabo badan oo aad bedelan kartid qofka saaxiibka oo aad u diidi kartid inaad tusid inaad online tahay ama in qoraalkaaga u arkay waxyaabo badan ayay leeyihiin ayagana waxay leeyihiin drawback-gooda iyo caqabadahooda ayay leeyihiin caqabadahooda waxaa ka mid ah in WhatsApp-yadaasi marmarka qaar la baangareeyo oo la xanibo ayaga dhanba meesha laga saaro waxyaabaha kale ay leeyihiin waxaa ka mid ah in marmarka qaar daatadaada la helo gaar ahaan waxaan ka digayaa inaad isticmaashid WhatsApp Gold WhatsApp Gold haddaad isticmaashid gaar ahaan marka aad video call sameysid waxa waaye hackeriska isla markii waxay u fududaanaya in barnaamijyadaada iyo telefoonkaaga informationkiisa iyo wax walba la hakareeyo oo la qaato macluumaadkaaga la helo ay fududeyn doontaa iska ilaali inaad isticmaashid WhatsApp Gold haddaba kusoo dhawaada casharkeennii oo faahfaahsan hadda waxaan uga hadlaynaa bal GB WhatsApp featureska uu leeyahay aan arki doonaa
dabcan kusoo dhawaada daawasho wacan GB WhatsApp featureska uu leeyahay iyo bal waxaan isku fiirinaynaa WhatsAppka officialka caadiga ah featureska uu leeyahay daawasho wacan. sida aan idiin sheegay dabcan WhatsApp-yada waxaa hadda mobilka igu jira laba WhatsAppka caadiga ah halkan farta uu saaran yahay iyo WhatsApp-kan GB WhatsApp. So GB WhatsApp sidaan idiin sheegay wuxuu aad ugu wanaagsan yahay customizationka inaad wax badan badbedelan kartid. For example in aad halkan waxaad tagtaa saddexda dhibic geeska ah waxaad tagtaa tusaale privacy. Okay, privacyga markaad tagtid halkan geeska waxaad dhihi kartaa hide online stats oo macnaheedu waxaa waaye qofka saaxiibka ah ma dareemi doono inaad online tahay haddii aad halkaas saaratid. sidoo kale privacyga tag blue ticks iyo second ticks. blue tickskaas hadda show ayuu ii yahay hide ayuu ii ahaa. so markaan ku noqdo under privacy blue ticks dabcan marka qofka qoraal uu kuu soo diro wuxuu arkayaa laba tick oo muujinaysa in qoraalkii aad dirtay qofkaas uu arkay in kale. so blue tick hide for contacts aad dhihi doontaa. haddana sidoo kale privacy second tick ayaa ka qaadi kartaa tickta kale hadda show ii ahaa let's go back privacy aan tago second tick hide for contacts ayaa dhahaysaa okay aad leedahay. so marka qofka ma arki doono in qoraalkii uu kuu soo diray aad aragtay iyo in kale ma dareemi doono. waxyaabaha kale dheeraadka uu leeyahay waxaa ka mid ah inaad halkaa geeska markaad tagtid GB setting aad tagaysaa. so waxaad soo degsan kartaa themes download themes ayaa dhihi doontaa. so colors qurux badan oo kala duwan ayaad halkaasi ku arkaysaa. so any theme aad u baahan tahay ayaad waxaad dhihi doontaa apply kan aan qaata for example. so okay ayaa dhihi doontaa. so wuxuu isku bedelay marka kalarka ayuu isku bedelay waad arkaysaa kalarkaasi quruxda badan ayuu isku bedelay oo qofka markaad la sheekaysanaysid chatting aad la sameysanaysid marka shaashad qurux badan ayuu ku keenayaa. waa themes ayuu leeyahay ma lahan WhatsAppka caadiga ah. sidoo kale 50 MB data ah ayaad diri kartaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa qofka friendskaaga muuqaalada ugu jiro ayaad soo download garaysan kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa statuska qofka ayaad koobiyeyn kartaa. WhatsAppka caadiga ah ma lahan statuska qofka ma dejisan kartid ama ma koobiyeyn kartid. so waa GB WhatsAppka wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo customization ah oo uusan lahayn WhatsAppka caadiga ah. laakiin marmarka qaar WhatsAppka caadiga ayaan geli doonaa. hadda WhatsAppka caadiga ah marka aan galo waxaa jira meelo uu kaaga digayo inaad isticmaashid GB WhatsApp. so saddexda dhibic geeska tag setting tag waxaad tagtaa help FAQ frequently asked questions halkaa clicksy and just waxaa ku furata Chromeka ku furo. so kan ugu horeeya tag temporarily banned. okay about temporarily banned marmarka qaar si ku meel gaar ahaan ayaa lagu mamnuucaya adiga lagu xayiraya. so meeshan wuxuu leeyahay unsupported applicationada aanan taageeraynin sida WhatsApp Plus and GB WhatsApp are altered version of WhatsApp. waa versiono la bedelay oo WhatsAppka loo bedelay. these unofficial applicationskaas aan officialka ahayn are developed by third parties. waxaa sameeyey qaybo kale ayaa sameeyey qaybo saddexaad oo aan annaga WhatsAppka ahayn ayaa sameeyey and violate waxay ku xadgudbayaan our terms of service shuruucdeena. so WhatsApp does not support WhatsAppka ma taageeraya these third party applicationadaas groupka saddexaad ay leeyihiin. we can't validate their security practices sababtoo ah securitygooda ma damaanad qaadi karno. so WhatsAppkii ayaa sidaasi ku dhahayo. haddii WhatsAppka caadiga aad rabtid inaad GB WhatsAppka halkan kaaga sheekeynayaa iyo waxyaabaha uu leeyahay. so WhatsApp Pluskii halkan uu kaaga sheekeynayaa
iyo waxyaabaha uu leeyahay. So WhatsApp-ka caadiga daarto inaad soo download the app here uu ku leeyahay waa officialka maaragtay WhatsApp-ka caadiga ah. Okay, WhatsApp Plus-kii iyo sidii loo download gareysanayay dhammaan waxaa kuu sheegayaa. WhatsApp application-ka caadiga ah waxa waaye halkaas aad ka soo degsan kartaa. So WhatsApp-kii ayaa kuu sheegaya waxyaabaha ay leeyihiin GB WhatsApp iyo WhatsApp Plus iyo WhatsApp Gold. Laakiin waxaan kuu sheegayaa isku soo duub WhatsApp-yadaasi waxay ka casriyeysan yihiin WhatsApp-ka caadiga ah sababtoo wax badan ay qabanayaan. Ayagana waxay leeyihiin drawbacks-kooda ay leeyihiin. Caqabadahooda waxaa ka mid ah in aanan la update gareyn karin oo update aysan lahayn ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah marmarka qaar in ayaga dhanba xanibaad lagu soo rogo. So hadda aniga GB WhatsApp ayaa igu jiro waxaan ku isticmaalayaa number kale. Haddii aad soo degsatid GB WhatsApp ha ku isticmaalin numberkii hore aad ku isticmaalaysay WhatsApp-ka caadiga ah sababtoo ah waxaad halis ugu jirtaa in laga si ku meel gaar ah xanibaad muddo laga xanibo WhatsApp-ka. Nambaro kale isticmaal waa okay, it's very application, good application waayo aad u macaan oo aad wax badan ku qabsan kartid oo aad howlo badan ku qabsan kartid. Aad ayaad u mahadsantahay sida qiimaha leh ee aad noola socotaan. So please haddaadan horey noola socon subscribe saar, haddii kalena oo aad horey noola socotidna like-taada iyo share-taada ha badato. Muuqaalo badan oo qiimo leh ayaan soo bandhigi doonaa. Gambaleelkana taabo mar walba waad nagu cusub tahay si waxyaabaha cusub ee aan keenayna aad ula socotid. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.